maalintuu dhimanaya Abu Dar cidla cad buu keligii ku dhintay meesha ribda la yidhaa xaaskiisii buu u yeedhay isagoo sakaraada way ku dul oyday markaasuu ku yidhi maxaad la ooyeysaa markaasay ku tidhi kaama maarmi karo kuma maydhi karo kuma aasi karo mara kafan kuu noqotana kuma hayo markaasuu ku yidhi dhegayso halkaa u bax tuurkaa u bax buu ka yidhi safar jamaaca mu'miniina soo mari doontee kuwaaba aniga i aasi doonee iigu yeedh buu ka yidhi markaasay ku tidhi xaggee dad aan ka arkaa bay tidhi xaggee dad ka soo maraan xilligan jidka xaajigii xajka ka noqonayna uu go'ay haddee toole oo xajkiina mar horaa laga noqdee dadka dariiqa soo marayaad sheegaysa waa dadkee bay ku tidhi nayaa i dhegaysa buu yidhi koox anigu aan ka mid ahay annagoo masjiidka dhex fadhina oo xalaqad fadhina ayuu nebigu nagu soo baxo wuxuu yidhi mid baa inaga mida ininka keligii cidlo ku dhimani doona keligii buu cidlo ku dhimani doonaa aaskiisana jamaaca muslimiin oo mu'miniina ayaa ka qayb geli doonta raggii maalintaa aan la fadhiyey nin kasta uu dhintay nin magaaluu ku dhintay nin tuuluu ku dhintay nin reerkiisiibuu ku dhintay ninka cidlada ku dhimanaya nebigu sheegay ee jamaacadda mu'miniintu aaskiisa ka qayb geli doonto waa anige ordoo tuurka u baxo jamaacaddii nebigu sheegay baa soo mari doontay igu yeedh buu ka yidhi bal sida hadalka nebiga u rumaysan yihiin dadkaas muslimiinta maanta adduunyada joogta iyo muslimiinta qarniga caalamka joogtay farqiga inoo dhexeeya waa yaqiin khabarka nebi maxamed ay ka maqleen ayay boqolkiiba boqol iyo ku rumaysnaayeen boqolkiiba boqol ninkii nebigu uu sheegay buu yidhi waa aniga ee cidlada ku dhimanaya raggii kaloo dhan way wada dhinteen tuulo iyo magaalo iyo qaryad iyo reerkoogay ku dhinteen ninka cidlada ku dhimanaya waa anige jamaacaddu nebigu sheegayba aaskayga ka qayb geli doontee halkaa u baxoo joogsa buu yidhi jamaacaddii baad arki doontaaye isaguna sakaraadkii baa haya tuurtaaba buur bay fuushaa xaggaa iyo xaggaa wax ka soo socday eegtaa haddana way soo noqotaa maradeeda intay qoysay madaxa u saartaa haddana way ku noqotaa siday u noqnoqonaysay bay aragtay jamaacad muslimiin oo dariiqa maraya maradeedii bay markaa sidaa u tidhi baa la yidhi markaa bay soo leexdeen haweenay bay arkeen buurta dul taagan waxay maxaa cidlada ku dhegay waxay tidhi saaxiba rasuulillaahi sal allahu alayh wasalam nin nebi maxamed saaxiibkiiya ayaa cidladaa ku dhimanaya kaalayo ila aasa bay ku tidhi markaasay idhahdeen oo waayo waxay idhahdeen waxay tidhi waa abu dar alghifaariyi radia allahu canhu abu dar baa cidlo ku dhimanaye kaalayo ila aasa markaasay soo yaaceenay yidhahdeen nufdihi biaabaa'ina wa ummahaatina hooyooyinka iyo aabbahay ayaa ku furanaynaaye masaaxiba rasuulillahi baa cidlo ku dhimanaya markaasay abu dar oo sakaraada ugu yimaadeen markay dhulka ka soo qaadeenee dhabta ay ku qabteen uu indhaha kala qaaday horta wuxuu ku yidhi bishaaraysta mu'miniin baa tiinoo nebiga idin sii sheegay buu yidhi xadiiska nebigu markii buu u bishaareeyey ta kalena wuxuu yidhi dhegaysta laba qof oo muslimiina walaalkood ma dhinto hadday u sabraan oo aynan u ooyin oo ixtisaabna ilaahay ajar ka dalbaan oy u sabraan addoonkaasi naar ma arkee waa niga dhimanayaa maanta oo cidlaan ku dhimanaya nebigaa i sheegee hay ooyine iska sabr buu ku yidhi arrinka saddexaadee nii sheeg waxa weeyaan mara kafan igu filan haddaan haysto iyadaa kafan layga dhigi lahaa laakiin ma haysto xaaskayguna mara kafan igu filan hadday haysana maradaabaa kafan layga dhigi lahaa iyaduna ma haysatee idhegaysta walaalahayow raggiina meeshaa maraya dowladda islaamka nin u soo shaqeeya hadduu inigu jiro dharka uu sitaa aniga kafan hayga dhigina buuhi kafan ugama barin dharkaas muxuu dhowrayaa xaaraantuu ka dhowrayaa jidhkiisa inay taabato diin buu wataa taqwad buu wataa iimaan buu wataa zaad buu wataa zaadkaa uu aakhiro la tegaayo inuu ka boorhooba ayuu diidan yahay innagana zamankan halkeen maraynaa waxaan ku cuninba waa la cunaa ilaa wax walba cunta soomaaliya gaajada unbaa xaaraana bay ku odhanayaan gaajada unbaa xaaraana kullu jismin nabata fi lxaraami fannaaru awlaa bihi jidh kastoo xaaraan ku kora buu nebigu yidhi naartaa u xaq loo cuni doonta buu rasuulku yidhi xaaraantu iska daa adiga ilaa oo shahwadaaday taaiirsaa shahwadaada way saamayn ubadkaaga xaaraanta taqwaduna awlaadday iska soo baxdaa waracu awlaad buu ka soo baxaa lidaalika nin boqora quruntii hore ah ayaa qasrigiisa soo galay isagoo walwalsan
حاسكي سيبا كنت محاكو علي بقر مسلم أبوها مجاهدة دولته كد سنابها بلاد الهند والسند مركز سويد إن كيني يعني عيدا كأودي بي مجاهد كاها أيا لئيسو شيء إن للسوج بيو لقى صوت كامل مركز سيدنا وركا صحما كن نقو صحما وركا وحبك مجرى بيتي الله قول نقضو حكي ويا بقرك ومعاد وقتها يا ضو أنا وحبان وقع بيتي تضمن مع الموت كذب هذا بقرك قصر جيبوا صوغ لسوق فرحسن حاسكي با كنت محاذا لما حادا عيمانتا وفرحسنته وعيدين كيني قال هذا وكسو غوليستي غنيمنا او سو غلا يا مانتا وركن دبا صاحبي ku jiri ومحاد وقتها يا ضو وعيد وحبان وقع معاد وقتها بلي شيء maalintii horena warkii hore waa diido warkii hore runta buu noqdo been buu noqday waxay tahay inkayga curade mujaahidka maalintuu calooshayda galay luqmad xaaraan afkayga inay gasho waa ka ilaaliyay bay tiri markaan dhalayna naas nuujinta aanu bilaabayna markaan naaska nuujinayo waanu weysaysanayay bay tiri ilmaha tarbiyadiisi halka aan ka soo bilaabay gaala sidee buu uga soo baxsadaa ma dhici karta bay ku tiri حارانتو سامين بيكوية لطاطتك بني آدمك لذلك ما أنت مسلمين عددك وبدين هي لكن تيري إنه ويرتهي ما أنت صحابة الرسول هنا عددك ويرى لكن معاه النيل تيدو ذا كواليتي بهاي كواليتي مسلم كواليتي بهاي لأن النبي محمد بات تربيدي الرقص تربوا بيد النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أبو ذر وكعب سقبا جركي ساس مرا حاران إن تابط إن يرو أنصاري يا يد أنيقا جو أن تكت أن كوسي تمادر كسا أبو ذر وها هو يدي بقى عنته دو كتو شيء دولة ده جري إسلام كان أنا جو أمير يبرين أمان نقونه إن أنصاري يو بيرت دو هيك صوبحان عنا جو أنا هو يدي بقى عنته دو كوسا ميسيب مرضى كفني قد يقول هذا بوايه سيدي سكون انت ابو ذر الغفاري رضي الله عنه ما يخافون كما عبسونا يعني ما شضع بل وحي جعلايين دارتا عريريقا مشاكل كبدل له الرفات كبدل له معصيات بدل له إنك كانتقالان وانتقالان جنة إلهي وبلغ هذا عز وجل وايو آخرها يكون دتك أصبحوا صيدك تاني يكون أدويدن كمان من والنا كان إنك وجدد اللي نو كان اللي نجمع غيرنا ولا نو عديو إلهي القرآن كويري وتزودوا فإن خير الزاد التقوى سو صحيح قاطع صحيح لقاطع وحو خير بدن الله كياب إمام علي مرقو فسر التقوى وحويري هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل عبسدوا ومحي تقوى ومحي وإله الجليل كا وأفر إلا باطلق ساعة لقى عبصون عدك لا كعبصون لأن عبسدوا وعبادوا جزء من العبادة ويان لكن عبادة وحاولنا قلنا كلية صلاة كلية عبسدوا وعباده محبده وعباده رجده وعباده الله بريده وعباده طال سارشده وعباده سجوده وعباده انت بإلهي ما ينعدك لما متيسن بريد إلهي با متيسي عبسي إلهي با متيسي ومحيري فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين محبة إلهي با متيسي ومحيري والذين آمنوا أشد حبا لله بريد إلهي با متيسي ومحيري وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بإلهي فلا سارشد إلهي با متيسي ومحيري وعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين بإلهي هداد مؤمنين أتهين إلهي تلسارتا نعم خشيت إلهي متيسو حويري نعم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حصيبا صفات كاسدتك مسلمين تلقدون هنا هلان خوف من الجليل داجها كعبسا فقرها كعبسا عدوها كعبسا إلهي غيرك كعبسا أقيم وجهك للدين حنيفا قلبك وجهك ودن وين توجد دين حنيفك عدك لا أوجسا حقوقه هيا هذا مخلوق هوين هذا
حركات كيسا سكنات كيسا إلهي بو باهية